kulanti wanaagsan daawade saraakiishii ka dambeysay dilka ganacsade Abuukar Kabax oo xabsiga loo dhaadhiciyay shakhsiyaad saraakiil kale oo tuhun uu galay taliyihii Hilwaa oo habeenkii saddexaad ku hooyanaya xarunta CAD-da baaris lagu bilaabay maadaama uu qayb ka noqday dadka dilka arxan darrada ah u geystay ganacsade Abuukar Kabax oo meedkiisa laga helay deegaanka Garisbaale sidoo kale odayaal dhaqan ayaa dadaalo ku bixinaya in arinta hab qabiil loo dhameeyo muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa xogta cusub ee ka soo korortay kiiska dilka ah ee Muqdisho loogu geystay ganacsade Abuukar Kabax waxaan ka codsanayaa in leeg asaarto muuqaalkeena siina sheer gareyso si uu marxuumka cadaalad u helo dhawaan waxaan idin soo gudbinay in Muqdisho lagu dilay ganacsade Abuukar Kabax tuhun xoog leh oo ku aadan in saraakiil ay fududeeyeen ayaan idinla wadaagnay dilkiisa hadda waxaa soo shacbaxday in taliyihii saldhigga degmada Hilwaa Cabdifitaax Qoslaaye uu qayb ka yahay dadkii shirqoolay isla markaana dilay ganacsade Abuukar Kabax oo meedkiisa laga helay iyadoo la baadigoobayo deegaanka Garisbaale taliyaha saldhigga degmada Hilwaa Cabdifitaax Qoslaaye ayaa loo xiray dilka khamiistii tagtay magaalada Muqdisho loogu geystay Abuukar Kabax kabtan Cabdifitaax Qoslaaye waxaa la tilmaamayaa in uu soo galay tuhun la xiriira dilka ganacsadaha waxaa la soo wariyay in asiga iyo istaafkiisa qayb ka mid ah degmada Hilwaa ay ka afduubteen ganacsadaha sidaasna gaarigii ay wateen jagboontiyada looga daayay isla markaana duleedka deegaanka Garisbaale ay ku dileen hadda baaristiisa ayaa ka socota xarunta CAD-da ee Muqdisho waxaana loo heystaa dilka ganacsadahaasi odayaal dhaqan oo labada dhinac ayaa isku dayaya in arinta hab qabiil lagu dhameeyo isla markaana warbaahinta aan loo soo bandhigin xogta ku aadan in taliyaha saldhigga degmada Hilwaa Cabdifitaax Qoslaaye uu ku eedeysan yahay kiis noocan ah isla markaana Muqdisho uu ku afduubtay qof ganacsadaha asigoo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya hay'adaha amniga ee Soomaaliya waa ceeb iyo sidoo kale fadeexo ay dhaxda ka galeen taliska booliiska haddii ay arintan dibadda u soo shacbaxdo waxaana taliyaha saldhigga booliiska degmada Hilwaa hadda ku socdo baaritaano iyo sidoo kale wareysiyo lala yeelanayo oo ku aadan waxa uu ka ogaa sida uu dhacay dilka kabtan Cabdifitaax Qoslaaye waxaa la warinayaa in shirqoolka uu ku sameeyay ganacsade Abuukar ay la wadeen xubno ka mid ah ilaaladiisa iyo sidoo kale dad xurguf ay kala dhaxeysay ganacsadaha Muqdisho arintan ku soo korortay fadeexa ayay ku tahay booliiska haddii hay'adihii amniga ay nafsadooda qayb ka noqonayaan dhibaateynta iyo afduubidda dadka shacabka ah waana fadeexo uu lugaha la galay taliyihii saldhigga Hilwaa Cabdifitaax Qoslaaye oo 2 sano ka hor sidaan oo kale dad qayb ka mid ah Muqdisho ugu dhibaateeyay daawada sidee u aragtaa in xogtan ay ku soo kororto kiiska ganacsade Abuukar Kabax